waxaan galay 2 toddobaad oo aan loo babac dhigi karin. Jirkayga baahi ayaa soo shay, maankaygana welwel ayaa saanyaday. Maalmuhu waxay jiritaankayga u cunayeen sida waraabuhu u baduuqo baraar beelaha ah ama neef. Niyad jabku wuxuu i gaarsiiyey ku fikirka dib ugu laabashada dadkii iyo deegaankii aan ka soo tegay. 2 sano kadib inaan guryo noqdo aniga oo sacabo miran waxay ka dhignayd fashil aan dib looga soo kaban karin. Sanadihii aan hooyaday ka soo maqnaa waxay u ekaadeen ilaa lagu hungoobay. Joogideyda waxay hooyaday u noqon lahayd wehel, aabahayna garab, walaaladayna gaashaan, tolkana derbi ay ku tiirsadaan. Marka aan ugu yarahay waxaan la wareegi lahaa ganacsigii awowgay oo markii uu dhintay iska baaba'ay. Sida ay Soomaaliduba ku maamaahdo, xoolo aabba mooyee adeer ma laha. Hanti mood iyo noolba wixii uu awowgay 50 sano tacbaayay 2 sano ayaa cagta lagu mariyey. Waa sida marka waraso aan qorshe lahayn looga dhinto hanti ay hodan ku noqon lahaayeen haddii ay si wanaagsan u maareeyaan. Si aan u soo koobo yoolasha nolosha, waxaan dhowr jeer isku dayay ka haridda ina kaydsane iyo mase suurtagelin. Shamhad ma ahayn ruux si dhib yar loo deyn karo. Waxay ahayd ilaa mar bilig i yiri iyo dhibic abaar dabadeed hortay. Waxay ahayd johorad la wada jecel yahay iyo man indhaha soo jiita. Ka sokow reerka ay ka dhalatay, qiyaasteyda waxay ahayd inantii ugu bilic samayd. Gabdhihii waagaa kacay quruxdana lagu tirin jiray. Boqolaal ayaa u hanqal taagi jirtay mase ay gaari jirin. Sida dayax heega joogo ama dib ka shidan buur dhaladeed ay raggu daawan jireen kadibna ku calaacali jireen. Waxaad jeceshahay oo jar kaa xiga ilaan indhuhu soo ma jiidaan. Naftii way diiday inay garaadsato, gabadhana ka go'do. Kaydsanana waa uu ku adkaystay go'aankiisii. Arrinta Shamhad waxay igu haysay guulalow ka weyn midka akhrista wanaagsan ay ku hayaan buug guriga uga buuxda, akhrintoodana uusan kansho ama fursad u haynin. Aniga oo ay talo farahayga ka baxday ayay Yaasmiin oo aan ku kulannay baska dadweynaha ii sheegtay in Shamhad la geeyey guri ku yaalo beer ka mid ah beeraha uu Janon ku leeyahay duleedka magaalada, asii aysan garanaynin midda ay tahay. Generaalka oo beeraha, biyaha, dooga, dumarka, dariiska ciidanka iyo ciqaabta aadanaha jeclaa waxa uu 3 beerood ku lahaa duleedka magaalada. Intaan candhuufteedii dib u laqay ayaan waayaha ka sugay bogsiinta boogaha jacaylka. Fikirkaygu kuma uusan koobnayn Shamhad keliya waxaan awood geliyey helidda gabaad aan ka galo humriga iyo qabowga. Ma jirin awood aan isbidahay iyo qof aan isku haleynayay oo aan ka heli karay guri aan dego. Muddo markii aan xaajar hurugay waxaan ka badin waayay inaan dib ugu laabto Xasan iyo geeriskiisii. Faragurow wuxuu ahaa kayd aan u baxsado mar walba oo ay noloshu igu adkaato. Isaguna dhoolacdayn iyo waana badan ayuu soo dhaweyn jiray. Aniga dabeecad ahaan ma jeclayn waanada badan. Waxay ii muuqanaysay in ruuxan ila talinayo uusan ogeyn tabaalaha ay haysta iyo tabcada ay noloshu igu dhufato. Waxaan ogaa in ruuxa iwaaninaya ay ka qarsoon tahay dhaawaca iyo murugada aan nalala qaybsan karin oo ay noloshu nagu reebto. Xasan ma haysanin dhaqaale buuran, wuxuuse ahaa nin qanacsan dadkana wax tara. Albaabkii geerishka ayaan istaagay aniga oo aan hubin waxa aan la kulmi doono. Salaad ayuu ahaa qofkii koowaad oo ay ishaydu qabato. Isbeddel ayaa ka muuqday. Caato ayaa garbihiisa la sintay dhegihiisa. Salaan kadib Salaad wuxuu ii sheegay in Xasan in muddo 3 bilood ah aysan kaliyihiisu shaqaynin. Subax walba wuxuu u kalihi jiray Alcaafiya oo ahaa cisbitaalka kaliya ee u adeega dadka kiliyahooda ay howlgabka noqdeen. Eebbaweyne ayaan sacabada u horsaday oo aan Salaad caafimaad u weydiiyey, anigana uga mahadnaqay badqabka uu i siiyey. Xilli dhalinyaro ila mid ah ay la nool yihiin xanuuno halis ah, waxa ay soo baxday in tacadiyada aan tirsanayo aysan waxba ahayn mar haddii aanan u kala haynin mashiin kiliyaha dhaqa, mid lixaad ka dhaqaajiya, qalab sanbabadaada neefsiya ama daawo saxda shaqada wadnaha. Qol aan si fiican u aqaano ayuu Xasan i geeyey. Sidii ayuu u wasaq badnaa, ciriiri u ahaa, baranbaraduna boqor uga ahayd. Subax walba waxaa hurdada iga kicin jiray matoorka gaari uu xoog u sheelaraynayo. Kirishboy raba inuu Xasan iska gado. Ma garanayo waxa aan soo xusuusan jiray mar walba oo aan maqlo guuxaas gawaarida. Gurey iyo dameerkii ina gooni. Gurey oo dameerka biyo ku dhaamin jiray, marna bal ku soo rari jiray si uu dadka u tuso xawaaraha dameerkiisa. Ayuu qoray afkiisa la qoray kaga turqi jiray ama kaga mudi jiray boog garabka bidix dameer kaga taalay. Ina gooni waa dameerkii intuu cay iyo dhuusi isku daro ayuu afaqaadi jiray sidii sangiqaar weyn. Gurey qosol ayuu la dhici jiray, dadkuna habaar uusan dheg jalq u siinayn ayay u miisi jireen. Waxa uu ahaa barbaar aan lahayn garaad ku filan, diin dabarta iyo naxariis dabcisa.
fursaduhu kedis ayaa albaabka u soo garaacaane subax aan iska dhex wareegayo ayay ishaydii qabatay shamhaad oo intii hore igala qurux badan si baraad la'na u daawanaysa gaari nuuciisu ahaa Toyota Grazida ah maxiisihii aan u qabay ayaa xariir iyo xamar cas ka dhigay mise waa qurux ay u dhalatay oo aanan horay u dhuganin miday ahaydba subaxa waxay ila ekaatay qof deegaanka iyo dunidaba ku cusub dhaqaaq iyo dhawaaq ayaan isku daray alla waa shamhaad alla waa iyadii dadkii ayaa soo wada eegay shamhaad oo iyaduna aan meesha iga filanaynin ayaa argagaxday waan awoodi weynay inaan si fiican isku salaanno ama istoyano oo iswaraysanno sidii qodkii ayaan qalalay waxay la noqotay in dhulkii uu joojiyey wareeggii baduhu ay daayeen hirarkii xidiguhu soo daateen qorraxdu hakisay geedigii dayaxuna ka caagay soo bixidii in dabayshii istaagtay uunka oo dhanna ay eegayaan kulanka macaashiqiinta kala baaday daqiiqada kadib ayaan miirsanay sidii hooyo cunug ka dhumay heshay ayay igu gadooday aniguna waan ku bururay dhidid ku milmay ilin candhuuf iyo diif ayaa naga qubtay waxa ay gabar ugu dul qaadato doob dhididkii waa uun jacayl waxaa markii koowaad midoobay 2 jir oo isku jeel qabay iyo 2 naf oo isku sidkan muddo kadib ayaan ku baraarugnay dadkana daawanaya ee intooda badan inay buug ka akhriyaan ama filim ka daawadaan mooyee aan horay u arkin muuqaalkan oo kale aad ayay inantii u xishootay sidii uu good qaniinay ayay dib iiga booday hadal waxaan uga bilaabay iyo waran shamhaadey waxay iigu jawaabtay iyada oo hoos eegaysa maradeedana isaga dhigaysa indhaha ku dhangagay korkeeda nabad geylamow waan fiicanahay adigu sidee ayaa tahay muddo aan dareenkayga soo ururinayay kadib ayaan ugu jawaabay inkastoo aan kaa kadib silac iyo saxriir mutay haddana weli naf way ugu jirtaa mar haddii aan ku arkayna waxaan sheegto waa dembi intaas markii aan isweydaarsanay ayuu mubaarak soo degay gaari agteena taagnaa si ka duwan sidii aan filayayna ii salaamay mubaarak oo aan wejigiisa laga dareemaynin wax isbeddel ah ayaa shamhaad gacanta ka qabtay gaarigiina ku celiyey durbo dadkii ayaa igu soo xoomay qaar la yaaban laacdin dheerideeda ayay naxdin carabka xirtay kuwa sideeda laga dhaariyey dooqa iyo doorashada ayaa bogaadiyey geesnimadeeda inkastoo ay kala aragti duwanaayeen haddana inta badan dadkii goobta taagnaa qosol sacab iyo mashxarad ayay isku dareen ma jirin ruux si taban uga fal celiyey midowga macaashiqiinta marka laga reebo 3 degle military ah oo watay mooto Suzuki ah indhaha ayuu ugu gubay kadibna igu yiri doolaal dheeridaada ayaan arkaaye meel xun ayaad ku socotaa naftaada u nax oo dhulka in kula eeg soco dhab ayaan u qaatay hadalka askariga aad moodo inaan ka dhacay hanti uu leeyahay waxaan sugayay falcelinta kaydsane oo aan waqti dheer qaadanin subaxii xigay ayaa aroor hore albaabka laygu soo jebiyey aniga oo jiifa ayaa jeegada layga soo qabtay wejiga aan iska dhaqo ayaan ku baryootamay gaashaanka ayaa salay daruuray gaari guuxiisa ka dheereeya dhiigna dhex daadsan yahay ayaa laygu tuuray carabka ayaan digriga allah saaray in yar kadib waxaan helay dhiiranaan iyo firfircooni sababtay inaan kor u qaado madaxii aan hoos u foorarinayay waxa aan soconnaba waxaan tagnay beer ku taalo buurta dhalacad dhankeeda midig waxay indhahaygu qabanayeen camba bislaaday saytuun sugaya gooyn babaay madaxa dadka ka weyn sabuul soo laadlaada liin madaxa kor u taagaysa qaare dhulka weeran doogana kalkacayl salaamaya kaabash kabsar sisin iyo tamaandho teedsan intay ishaadu qabato inkastoo aan cabsanayay haddana waxaa iga awood badiyey dhaqan aan lahaa ilaa yaraanteydii taas oo ahayd tirinta waxa ii muuqdo waxaan daqiiqada geliyey cabirka beerta 10 daqiiqo oo ukurgal iyo kabaarandegid ah kadib waxaa ii soo baxday in cabirka beertu yahay 2 yaasiin iyo 1 tabaarag inkastoo aan deegaankayga laga adeegsanin in beer quraan lagu cabiro haddana waxaa cabirkaas cajiibka ah ibaray isxaaq cali oo ka soo jeeday dhul quraanku wax walba halbeeg u yahay marka uu ruux ku dhaho beertaydu waa 1 yaasiin wuxuu ka wadaa badkeedu wuxuu la egyahay inta ruux socdo uu suuratu yaasiin ku dhameeyo beerta waxaan ugu tagnay dahabo iyo 2 nin oo shaqaale ah indhaha ayaan iska eegnay kadibna isku daba marnay sidii 2 ruux oo aan weligood is arkin qulqulka biyaha nuxnuxda shaqaalaha ay dahabo canaanayso caleemo iyo laamo ay dabayshu luulayso maahine shanqar kale ma jirin jawigii deganaa hal mar ayuu isbedelay waxaana soo galay guuxa gawaari dheereynaysa durbo ciidan dhalinyaro u badan ayaa isku ballaariyey beertii geed walba ayay hoos istaageen bidix iyo midigba way ka mareen gaarigii uu janonku saarnaa tolow dadku maba aysan ilaalinayne ee mageeri ayay ka dhowrayeen muraayadda mid ka mid ah gawaaridii ayaa hoos loo dhigay waaba kaydsane ma uusan hadline tilmaan ayuu iigu sheegay soo gal gaariga walbahaar ayaa la ii tuuray
waan labalabeeyey dhowr ilbiriqsi kadib ayaa nafta ku qasbay geelidda gaariga markii aan salka la helay kursigii ayuu gaarigii xawaare uga baxay gartay inaan ku suganahay xaalad adag daqiiqada kadib ayuu generaalkii hadalka ku iba furay baryidin waraysi tayasho iyo sheeko kale oo aan xiriir bala lahayn shamhaad hadal walba oo ii dhaho wuxuu iga siibayay waran ka mid ah warmaha cabsida sheekadaas uu kalgacayl ka muuqda kadib ma filaynin dhibaato tolow xaggee ayaan kalsoonidaas ka keenay 40 daqiiqo kadib ayaan kala aamusnay 10 daqiiqo ku dhowaad ayaan kala aamusnayn oo aan shaaga ama taayirka gaariga aan dhegaysanaynay anigu ma garanaynin meel aan hadal ka bilaabo isaguna buug ayuu ku mashquulsanaa guuxa gaariga keliya ayaan dhegaha la wada raacaynay cabbaar kadib kaydsane ayaa hadalkii dib ugu soo noqday geelamow soo ciidannimo in badan igama aadan codsanin intaanan hadlin ayuu isagu isku jawaabay haadheh saakay ayaan kugu darayaa ciidan cusub oo la qorayo ee isdiyaari dulqaad iyo adkaysi ayaa lagaa rabaa ama nin rageed ayaad noqonaysaa ama doqon ayaad ku soo bixi waa war aanan meeshaba soo dhiganin aniga oo waalidnimadii jananka dib u xusuustay ayaan ugu jawaabay awowe ciidannimadu waa yoolka koowaad ee aan u noolahay xaqiiq waxaa ah maanta inay tahay maalin barqadeed maalin aan dib u dhashay awowe ammaan mooyee xumaanna igama soo kaa gaarayso ilaahay idinkii aniga oo af iyo adin midna aan waxba laygaga geysanin ayaa dib la iigu soo celiyey geeriskii laygala baxay salaan iyo duco ayaan ku sagootiyey kaydsane kadibna horay u galay qolkii aan deganaa xasan oo naxsan ayaa qolkii iga soo dabagalay geelamow haye war isii maxaa lagu geystay ayuu isaga oo neefdhabaya i weydiiyey waxaan ugu jawaabay waxba saaxiib nabad ayaa liigu soo celiyey fargurow igama tegine ee agtayda ayuu fadhiistay waxaan celcelinay sababta aan waxba lii yeelin aad ayaan ugu kala aragti duwanaanay aniga waxay la ahayd in kaysana ilaaway dhacdooyinkii na dhex maray sannada kadibna ee riyadeedii rumowday xasan isagu wuxuu qabay in aysan dhacaynin in jananku uu iga argoosan waayo dhinacyo badan ayuu wax iga tusay dhegsi jalaq uma aanan siinin talooyin dhowr ah oo aanan midna qaadanin ayuu xasan i siiyey talo waa maraad garan weydo iyo mar aad gaari weydee in badan ayaan ka shallahayay qaadasho la'aantii talooyinkii xasan ee wax ku oolka ahaa aragtideydii waxay noqotay dhalanteed ee waayuhu beeniyeen waa jimco bisha maarso ay 17 tahay dadku waxay isku diyaarinayeen ciidda toddobaadka aniguse waxaan sugayay go'aankii ugu saamaynta badnaa noloshayda subax hore ayaan ka kacay bannaan aan habeenkaa seexday bisha maarso guryaha aan qaboojiye lahayn waa kulayl aan foodda la geli karin geerishna warkiiba daa kaydsane iyo inta la midka ah unbaa sariirahooda kuladi kara iyagoo aan huur iyo haarifba toona ka baqaynin muhiimaddu uu kulanku ii lahaa waxaa laga garan karay saabuuntii aan subaxa ku qubaystay iyo surwaalkii aan xirtay suurtagal ma ahayn in aan maalin walba jirkayga ku nadiifiyo saabuun shacni ah ama aan xirto surwaal seerad ah dad yar oo eebbuux siiyey ama hadiyad loogu keenay sidayda oo kale ayaa musqulahooda dhigan jiray shacni waxaan albaabka ka baxay aniga oo bilicdeeda la dhacsan olyada iyo garaasada geerishka dhex weerarna iska ilaalinaya waxaan rajeeyey in nolosha oo inta badan canaada ragga mowqifka leh ay ii qusasho toddobaadkii ballanta ka horreeyey oo dhan waxaan ka fikirayay dharka aan xiran lahaa waan ogaa inaan qaadanayo surwaalka seeradka ahaa ee waxaan ka walaacsanaa shaatiga aan u xiran doono kuma aanan wacnayn isu dheelitirka xidhashada dharka isku soo baxaya isku diyaarinta ballamahase aad ayaan ugu wanaagsanaa u tookaynta ballamaha ma ahayn dhaqan igu cusub waxaan bartay aniga oo yar weli maankayga kama bixin mahmaah ruush ah oo aan ka maqlay macallin bile shimbirahana duulimaadka ayaa laga gartaa dadkana lebiska soomaaliduna waxay ku mahmahdaa hugaagu waa uu kala shartagaa ma jiro qof danaynayo ama waqti siinayo ruux basaasan rifrifan uskag badan ama wasaq badan amaba aan diyaarsanayn hankaygu hawada ayuu marayay waxaa ii muuqday yool weyn oo aan xaqiijiyey inkastoo aan sugi la'aa inta aan gelayo iridda kulliyadda ciidanka haddana dib nin ku gubtay ayaa dambasiis ka leexdee dareen cabsi iyo taxaddar leh ayaa igu marnaa dareenkaas meel cidla ah kama uusan dhalanin ee dow ayuu lahaa dadku la mid yihiin xoolo xero ku jiro midkii la rabana la qasho ma garanaysid xilliga lagu xiraayo iyo dembiga lagugu eedaynayo mar walba oo aan xerada u sii dhowaado cabsidu kor ayuu sii kacaysay iskuma aanan halaynaynin jenaraal dhib badan ii geystay cabsidii uu xasan ii muujiyeyna ma ilaawin yaa isku halayn karaa abris dad uu eki kugu dilaya toobiyihii dheeraa ee xerada tababarrada aadayay ayaan cagta saaray ma garanaynin waxa aan mudan doono guul ayaan sarijeynayay waxaan cindiga ku hayay in iridda askartu ii firi doonto kuwa ka weyn kana fursad badan
iima caddayn waxa lay weydiin doono iyo shuruudaha layga rabo. waxaanse ku laab qaboobaa in aan la hor istaagin wiil ka socdo jenaraal la xurmeeyo. intii aan dhabbaha ahay isla sheekaysi hoose ayaannu heshanayay, dhinacyo badanna waan ka qiimaynayay nolosha aan albaabkeeda garaacayo. nafta ayaa argagax weydiisay, gaylamow, ma hubtaa inaad hayso jid sax ah? bilowgiiba armada af libaax gashaa. gaylamow, dib u noqo oo naftaada badbaadi. dood dheer kadib, hore u socod iyo hiigsi ayaa naftii ku booriyey. socodkii ayaan iska sii watay, naftuna walaaciyey. gawaari ay wadaan darawallo timo dufula leh ayaa dhan walba isku dhaafaysay. mid la moodo madi dhaxalkii aabihiis laga qadiyey ayaa xaajiyad qamsiin idardarsiin gaaray. jidka waxaa labada dhinac u hayay dad raxan u socday, kuwo labalabo u socday waan arkayay, halkilyaaluhuse ma badnayn. anigu keligay ayaan ahaa. mayee rajo ayaa wehelinaysay. walaac ayaan sidoo kale ka qabay. jananka gacantay qabtay ciidanimadana ii fududeeyey. waxaan doonayay inaan askari noqdo, aniga oo aan ruuxna ii faragudin. ma jecli in wax laygu sheegto, mana doonaynin inuu qof ila yeesho guul walba oo aan gaaro. dhallinyaradii soo xaadirtay xerada ciidanka, intii aan aqaanay iyo inta aanan garanayninba, muuq iyo midabba waan ka sinnayn. iyagase sidaas lama aysan ahayn. waxay isku haysteen in aanan waxba la wadaagin, dun, dal, diir iyo diin midna. wiil beryed ah lagama filaynin inuu issoo taago ka mid noqoshada ciidan gaar ah oo madaxweynaha ku ilaalin doona kursiga xukunka. waa laga yaabaa in ilaalinta danaha dalka oo aan aad looga fikirin loo qaato qof walba iyo qabiil kasta, laakiin dhowridda maslaxada maamulka sare ee dalka waxaa loo igmadaa dad gaar ah oo shardiga koowaad oo lagu doorto uu yahay hayb iyo hayrnimo. markaan sidaas soo istaagay barxaddii weyneed oo ay dhallinyaradu tubnaayeen, ayuu askari ugu amray inaan dhinac u istaago. cabsi iyo walbahaar isbiirsaday ayaa wadnaha ii dhaafay. waa gartay inaan cabsado. waxaan ku noolaa dal waxa keliya ee horumar u yahay qaababka dadka loo dilo. waan ka dhega adeegay amarka halxidiglihii ku faraxsanaa shaqadiisa. cabsi xoog leh ayaan ka qabay in ciidanka la qorayo la iga reebo ama si kale la ii dhibaateeyo. dhowr jeer markii uu hadalkii uu ku celceliyey ayuu dhawaaq dhigtii jaray, waryaa dhinac isku taag. amarkii ayaan halhaleel u qaatay. cirif durugsan oo uu fadhiyey wiil tabar yar oo qunfacaya ayaan istaagay. wiilku afgembi ayuu u yaalay, candhuuf iyo dhididna waa ay ka qubanayeen. waan la irkigay waxa meesha keenay inankaan xanuunsan ee istaagga qaban la. waadse u garaabaysaa isaga iyo kuwa la midka ah markaad ogaato in ciidanku yahay meesha keliya ee laga heli karo awood iyo nolol fiican. askarta dalka haysata waxay ku nool yihiin nolol ka hodansan midda shacabka. ganacsiga laga bilaabo warshadaha waaweyn ilaa iibinta baradhada iyaga ayuu u xiran yahay. ubadkoodu haddii ay dalka joogaanna waxay dhigtaan iskuullo gaar ah, haddii ay dibadda jiraanna waxay ku jiraan jaamacado qaaliya. xanuunkooda waxaa lagula tacaalaa cisbitaallo gooniya oo ay shacabku kor ka daawadaan, ama dibadda ayaa loola cararaa. waxaa la geeyaa cisbitaallo ay ku baxdo lacag aan ka yarayn miisaaniyad wasaarad. dhowr tillaabo ayaan ka durkay ninkii bukay. meel cidla ah, dadkana ka fog ayaan istaagay, aniga oo hareeraha eegaya bal inaan si wanaagsan u weeleeyo ama u qiimeeyo waxa dhinacyadeeda ka dhacaya. markii aan arkay dhallinyarada meesha maraysa waan shakiyey. mid walba wuxuu ag taagan yahay aabbihii, adeerkii, abtigii, ama wuxuu sitaa fariin toos uga socoto saraakiisha xerada xukunta. in badan oo dhallinyarada ka mid ah waxay isku hor wadeen ama isku hor wataan lacag aysan qarsanaynin, jid walbana u furtay. runtii in musuqmaasuqu uu sidaas u caddaado, ciidankuna ku dhex faafo, waxaa ka xumaa saraakiil badan oo uu ka mid ahaa saddex dig leh cabdiwaasac kulanne oo sida aan hadalkiisa ka dareemay ku cusbaa goobta shaqada. dhigta ayaan u dhigay isaga oo la sheekaysanaya askari kale. wuxuu leeyahay, dalmarow, ciidankii aan u dhaarannay iyo midka hadda inoo muuqdo ma isku mid baa? dalmar oo ka baqaya in hadalkiisa la maqlo, saaxiibkiina u cabsanaya, ayaa intuu madaxa xoqday dhinacyadana iska eegay ugu jawaabay, maya cabdow, ciidan dalma jaree, ciidan dad gaar ah leeyihiin ayaan nahay ee naftaada u baq, carruurtaadana iska korso. wuxuu sii raaciyey, waad og tahay inaan tuutahan u xirannahay ilaalinta danta 8 nin ee saaxiibada ah ee aanan u xirnayn ilaalinta danta dalka. cabdow, miyaadan weli bislaanin? afkaaga hayso oo indhaha uun wax ka daawo. dalmar iyo cabdiwaasic oo cabsi ay ka muuqato ayaa sheekadoodii ku soo gabagabeeyey. waan wada garanaynaa waxa xigo marka musuqmaasuq baaho, eexdu badato, cadaaladdu yaraato, dulmigu dadka wada taabto, xaaladuna gaarto inaan laga dhiidhiyin ee indhaha uun laga daawado gaboodfalka dhacaya. wax yar kadib askari buug wato ul yarna ku xaragoonayo ayaa soo ag istaagay.
ma ahayn midkii hore ee dhinaca ii istaajiyey da ahaan ka weyn garaada ahaanna waa uu ka sarreeyey si hoose ayuu iigu tilmaamay inaan aado guri qoraxsin iga xigay cabbaarna ka durugsanaa meeshay shaqadu ka socoto hadallada xamxamta ah iyo guriga aanan arkin ruux kale oo loo diraayaba cabsi ayay igu abuureen awood aan ku diido ama aan ku weydiiyase ma lahayn sidii laba qof oo is yaqaano ayaan garba siman u dhaqaaqnay aniga iyo askarigii waa uu iga gaabnaa aniguna waan ka dhuubnaa waxa uu ahaa nin tilaabo gaaban oo u tababaran inaan laga shakiyin ama aan la ogaanin kala duwanaanshaha isaga iyo qofka la socdo ruuxii meel fog naga arkaa wuxuu moodayaa inaan si wanaagsan u sheekaysanayno ama aan xallinayno xaajo murugsan qofkiise noo kuur galo ama nagu soo dhowaado waa uu arki karay in aan ka jawaabayo su'aalo uu askarigu ka akhrinayo buug uu watay buuggii dad badan xusuusin jiray diiwaanka aakhiro waxaa ku qornaa dhammaan waayihii noloshayda jidkii dheeraa ee aan soo maray hayaankaygii aragtiyaha aan ka qabo dalka dadka iyo dowladda heybtayda muuqaalka jirkayga waxa aan necbahay amaba aan jeclahay iyo sababta aan u doonayo inaan ciidanka ugu biiro waxaan isweydiinayay goorta xogtaas layga qoray aamusir kadib fursad aan su'aalaha kaga jawaabo ayaa laysiiyey inta badan weydiimaha kama aanan bihidiidin marka laga reebo inaan jeclahay hilibka geela iyo digaagga midna ma aanan jeclayn saamaba heli karin xaafadaha hilibka kala doorta waa kuwa askarta iyo inta la jaalka ah hilibku wuxuu ahaa wax aan joogin oo la janto wax maqan oo la jecel yahay haddii digir la helo hilib waa laga maarmi jiray inkastoo dhibku xad walba dhaafay shacabkuna dhibbanaa haddana ma jirin qofku dhici karay inuu afka kala qaado waxa keliya ee la oggolaa waa in dadku ay ka hadlaan raashinka daruuriga ah oo isaga aan la waayi jirin haba iska yaraadee su'aalihii waxaan uga jawaabay sidii uu askarigu rabay garabka ayuu si naxariis leh iiga dharbaaxay isaga oo idhiirigelinaya iguna bogaadinaya geesnimada aan muujiyey iyo runta aan ka sheegay noloshayda ilama uusan hadlin hase ahaatee garab taabashada iyo dhoolacadaynta ayaan wax badan ka dheehday rajo ayay ii gelisay farxadda uu askarigu ii muujiyey cabsidii oo dhanna way ii daysay waxaan aaminay inaan ku soo bixi doono liiska dhallinyarada la qaadan doono sidii ayayna noqotay oo waxaan ka mid noqday fac da'yar oo sannadihii xigay dhiig cusub ku biiriyey xoogga dalka waxaan soconnaba waxaan gaarnay gurigii durugsanaa oo ay 6 sargaal nagu sugayaan 2 shaah bigays ah cabaya sheeko qoysnahaya mid canjeelo saliid macsaro badan ugu daray 5 farood iyo calaacal ula tegay ayaa faraha aad ugu mudmuudsanayay sidii nin xabsi laga soo daayay oo markii koowaad helay cunto yar oo uu jecel yahay mid qabandhaca xumi ee ka muuqato ayaa hagaajinayay faylal kala midaba duwan mid indha gaduudan ayaa sigaar la taagnaa qiiq ayuu kol baddaan uga sii daynayay meel kasta oo ay joogaan aadanuhu waa isku mid waa tabaryare isla weyn mid gar weyn sidii uu shiikh buuni ah yahay ayaa kursi ku fadhiyey miis hortiisa yaalana 2 lugood saartay 10kii safarood oo is suran ayuu qadaadkiisii ku tiiriyey kadibna kursigii marba dhan u wareejiyey wuxuu cod danan leh ku qaadayay heeso howleed geela loo qaado hormo inay timid oo horweyn tabay waan hubaayo way hor joogtaa geela xoolo kuma jiro xaluska hablaha wiil xantoobsaday oo xaraga jecel wala xiisay kaama dhama xoor markii uu tixaas mariyay ayuu aamusay cabbaar markii uu aamusnaa ayuu mar kale tixdii geela dib ugu laabtay ninna dhaqashow kuugu dhabar jabay ninna dheef buu ku dhex joogaa tolow ma geeljire ayaa askari noqday mise askari ayaa geeljire xub siibtay midkii ay ahaydba waxay i tustay xiriirka qotada dheer ee ay Soomaalidu miyi iyo magaalaba leedahay geela saraakiishii liigi geeyay waxay mariyeen imtixaan yar oo aan ku durduriyey kadibna waxay qalin ku duugeen askarinimadeeda imtixaanku ma uusan ahayn mid iga hor istaagi karay ku biiridda ciidanka maxaa yeelay mar hore ayuu kaydsane magacayga soo gudbiyey mayana kaydsane lama dhihi karin waxa uun laymarsiinayay habraaca qoridda askari cusub hadalkoodii waxay ku bilaabeen hambalyo geylame ku soo dhawow ciidamada qalabka sida waxaad ka mid noqonaysaa urur gaar ah oo loo tababarayo difaaca dalka iyo unugooynta cadowga xiradii ayaan ka soo baxay aniga oo ay hawa adduun ii hilaacday naftayda ayaan u qaaday jacayl iyo ixtiraam hor leh waxaan iska furay dabar adag muddo dhowr maalmood gudahood ah ayaan ku soo diyaar garownay kadibna ninba meeshii loogu talagalay ayaa la geeyey waxaan bilownay nolol daal badan xurriyaddu ku yar tahay leyli bixin adagna waan qaadanay toddobaadyadii hore oo dhan waxaana la barayay sida cuntada loogu cuno qaado iyo fargeeto sida madaxda loo salaamo iyo dhinaca laga istaago ama laga fadhiisto sidoo kale waxaana la baray wadidda gaadiidka kala duwan gaar ahaan gaariga iyo mootada intaas waxaa garab socday jimicsi iyo jirdhis adag oo aad noo daaliyey
maalin ayaa si kedis ah lii weydiiyey tirada iyo ficiladii ay samaynayeen askartii qolka go'aan qaadashada ciidanka igu sugaysay lixdoodii iyo sida ay ahaayeen ayaan sheegay waa dambe oo aan askari gaamuray noqday ayaan ogaaday inay ahaayeen askar la diyaariyey lana doonayay in la tijaabiyo awooddayda xusuus iyo u fiirsi markii aan ka gudubnay afaafka hore ee nabad sugidda waxaan galnay dhowr toddobaad ee nala barayay waa maxay dowlad madaxweyne muxuu yahay maxayse shaqadiisu tahay madaxweyne ku-xigeen wasiir agaasime ilaa iyo agaasime waaxid ayaa si hor leh naloo baray waxaan iyagana baranay qaybaha ciidanka maamuuska iyo mas-uuliyadda ay kala leeyihiin intaas wixii ka dambeeyey waxaan galnay tababar aan dhammaanaynin oo socday ilaa aan jeel ka galay si guud waxaa naloo tababaray iska caabinta cabsida sida looga gaashanto naxdinta ganafudhigidda gardarrada ka feejignaanta farxadda foolka ka muuqata maquuninta rabitaanka gaarka ah oo babacdhigga cimilada ka adkaanta gaajada oonka iyo soo jeedka isdaadraacinta iyo dad iyo deegaan isku ekaysiinta 2 sano iyo 6 bilood oo tababar ah kadib waxaan ku biiray waaxda sirdoonka xuuraanka iyo xog ururinta ciidanka waaxdaas waxaa la geyn jiray dad gaar ah oo la hubiyey noloshooda sal iyo baar 160 askari ayaan 8 keliya ku aadnay waaxdii lafdhabartu ahayd dagaalkii boqnagooye markii aan soo dhammaynay tababarkii koowaad oo sahlo ahaa ayaan galnay 11 bilood oo leyli sirdoon iyo xuuraan ah waxaana tababarayay macallimiin Soomaali ah iyo shisheeye isugu jiro tababaradii aan qaadanay waxaa ugu muhiimsanaa 1 xirfadda sirdoonnimada oo lagu baranayay qorsheynta xog ururinta maareynta baahiyaha sirdoonka diyaarinta iyo soo saaridda faallooyinka 2 xirfadda sirdoon ee ilaha furan oo lagu baranayay ururinta iyo xogaha ilaha furan akhrinta gorfeynta iyo qiimeynta xogta ilaha furan 3 howlgallada sirdoonka oo iyadana lagu baranayay qorsheynta iyo go'aan qaadashada xiriirka ka dhaxeeya sirdoonka iyo bulshada howlgallada sirdoonka iyo eray bixinta 30 bilood oo aan liiliga ku jirnay waxaan ku qaadanay xamaasad aan maalinna hoos u dhicin aadna u farxad gelisay macallimiintii waxaan ahayn dhalinyaro u heelan barashada tabaha sirdoonka saraakiishii na soo xuleysay horay ayay u ogaayeen qof walba iyo meesha uu ku wanaagsan yahay amaba uu ku liito buuggii askari uu sitay waxaa aasaas u ahaa helidda saraakiil xul ah howl walba oo loo dirana ka soo bixi kara mar dambe waxaan ogaanay in 3 sano iyo dheeraad si hoose loola socday dhaqdhaqaaqa qaabnololeedka iyo weliba habfikirka sideetanaadka intaas keliya ma ahayn ee dib ayaa loo raacay jidkii ay noloshu nala soo martay ama aan annaguba la marnay subaxii koowaadba hogaamin soo jiidatay indhaha macallimiinta ayaan muujiyey runtii awoodda hoggaanku waxay ka mid ahayd dabeecadihii aan iga harin ee aan la weynaaday muddo gaaban kadib askartii dhexdeeda waxaan ka noqday mas-uul ee ishu qabato inkastoo mas-uuliyadda lay saaray ee qayb ka ahayd laylinta askariga haddana way igu cuslayd ma diidi karin doodna iigama furnaynin mar haddii askarinimada aan laygu qasbine ee anigu aan doortay waa inaan u dhabar adeego wax walba oo ka dhalan kara aniga iyo saaxiibaday waxaan u dul qaadanay canhanta macallimiinta dhowrsanaanta alafsanaanta taliyaasha dacdarrada hooyga iyo dhedhanxumada cuntada intabase waxaa ka darnaa kabaha iyo darayska adag ee aan goor walba ku joognay muddadii aan tababar ku jiray waxaa shamhaad iga soo gaaray 6 fariimood oo qoraal ah iyo 2 af ah intaba waxaa iga soo qaadayay Cadnaan Cali oo ay Yaasmiin qaraabo ahaayeen fariinta shamhaad waxay soo mari jirtay wareeg dheer oo aan sahlanayn guriga ay ku nooshahay ilaa xirada ciidanka 5 ruux ayay soo mari jirtay 2 lab ah iyo 3 dhidig ah fariintii iigu saamaynta badnayd waxay soo gaartay galab Talaado ah taariikhduna ku beegnayd 11 Juun aad ayaan u daalanaa niyad jabna iiga muuqday waxaan ka walbahaarsanaa xaaladda aan lagu halagalay maankaygana dib u gurasho aan suurtagal ahayn ayaa ka guuxaysay wahankii saarnaa iyo wahabkii aan dareemayay waxaa iga qaaday fariintii siday jacaylkii gaaxday talaadadaas tolmoon waxay soo wada gaaray 2 fariimood Cadnaan ayaan gacanta uga dhunkaday sida xerow shuminaya gacanta shiiqiisa gacantu kuma go'do waayo badanna jir oo joog ayaan ugu duceeyay aniga oo dhanka bidix isku majiiray si aan indhaha dadka iyo sawaxankooda uga fogaado meel cidla ah ayaan la tegay 2 warqadood tee ayaan hor furaa tee ayaan ku bilaabaa hal mar ma wada akhriyaa dhowr daqiiqo ayaan korka ka salaaxayay kolna wadnaha saarayay kolna dhunkanayay gabay iyo dhunkasho ayaan isugu daray waana labadasi oo ay aadanuhu u cabiraan jacaylka hal mar ayaan wada furay waxaa sankaygii buuxiyey
udgoonkii shamhaad maankaygana waxaa ku saaqay xusuusteedii wacnayd isha ayaan la raacay warqad lagu qoray fartii laga quruxda badnaa ee ina kaydsane si guud inta badan hablaha dhabanka leh ma dhigaal wacnaa farta ayaan saaray qoraalkii kolba dhan ayaan ula raacay dhidid ayaa igu soo istaagay jiraracyo ayaa i ekayday diirimaad ayaan dareemay wadnuhu kalkacayl ayuu la dhaqdhaqaaqay jirkiina wehel ayuu u baahday weli way isugaysaa i jeceshahay waan booday sidii ruux la qaniinay ee haddana isceliyey oo aan fadhiistay sidii ilmo yar ayaan dhan walba u orday jacayl aan dhallaan kaa dhigin ku dhaafsiinin da'da aad jirto iyo dhumucda garaad aad leedahay waa dhalanteed aan lagu dhaaran karin waxay shamhaad warqadda labaad iigu sheegtay in bil walba ay dhowr dhambaal ii soo qorto hase yeeshee ay weydo ruux ay u soo dhiibto sidoo kale waxay ii sheegtay in dahabo ay sii laba jibaartay cadaadiskii ay ku haysay dahaboy lagu soo qabay ilaahay idinkii intaan idhi ayaan aaday qolkii aan deganaa si aan ugu jawaabo shamhaad waxaan qoray fariin weyday cid gudbisa kadib markii cadnaan laga ceyriyey shaqadii ciidannimo fariintii dhicisooday iyo kuwii shamhaadba waxaan la aaday ciraaq oo aan ku qaatay 42 bilood oo tababar iyo tacliin ciidan ah waxaan ka dhoofay magaalo hooy u ahayd xasuus iyo jacayl korneyl macruuf oo naga sagootiyey garoonka diyaaradaha ayaa noo rajiyey nabad iyo dadaal goos dambeedka ku qabsada oo haddayicina fursad walba oo aad ka heshaan bilaaduraafidayn meel gooniya intuu ila tegey ayuu aniga si gaara iila dardaarmay finawaa ayay ugu noqotay inuu macallin macruuf og yahay xiriirka naga dhexeeya aniga iyo shamhaad tolow macadnaan ayaa u sheegay miilihiis sirdoon ayaa soo gaarsiiyey mise kaydsan qudhiisa ayaa iga soo ashtakooday hadalkiisii koowaad ee aan ducada iyo dardaaranka ahayn waxa uu ahaa geylamow idhegayso waa aan aqaanaa ruux wax jecel oo waanada ma qaato anigu inanta jananka iska daa ku dhihi maayo asii kaligeed dumar maahine mustaqbalkaaga darteed ha u duminin waxaan ahayn dhallinyaro loohan weynaa miisaanka ay saraakiishii ka soo qayb gashay sagootintayna ku dhex lahaayeen ciidanka ayaa muujinaysay sida nalooga dhur sugaayo in naloo qaato ciidan gaar ah kuma aanan helin karti ama awood qofeed oo keliya hee waxaa jirtay dun daahsoon oo inta badan naga dhexaysay 4 ka mid ah dhallinyarada la qaatay waxaan ka soo jeednay beelo siyaabo kala duwan loogu gacan bidixeeyo sida qaybsiga Soomaalida sida ay ila tahay waxay madaxdu istuseen in aan daacad u noqonayno kuna far adeegayno fursadaha nala siiyo waxaana la baray in si buuxdo ilaa heer nafhurid aan uga hortagno awood walba oo isku dayda wiiqidda nidaamka noo hirgeliyey riyooyinkeenii duugoobay intaas kaliya maahee waxaa qarsoonaa in aan ka aargoosanno ku amarku taaglayno ujir nixweyno Soomaalida sinaanteena diiday gaar ahaan in cardaadiqaha laga dhigo ruuxii isbida itaal aqooneed aragti siyaasadeed cudud reer ama awood dhaqaale ciraaq waan ku bulaalnay meel walba koolkoolin iyo karaamayn ayaan ugu tegaynay waxaana loo soo dhaweeyey sida walaalo kala baaday weji furan gacmo fidsan iyo qalbi faraxsan ayaa nagula qaabilay inkastoo aan durbadiiba ka gudubnay haddana dhib aan afla'aan ahayn nama qabsanin rubadaale waxaan ka soo dhoofnay annaga oo aan ka bogan karin af aan Soomaali ahayn af Carabi 2 eray oo isku xiga ma aanan dhihi kareynin hase ahaatee dhowr bilood gudahood waxaan si wanaagsan u baranay Carabigii dhigid iyo dhihidba caadil oo kamid ahaa macallimiintii waxna baraysay wuxuu ku adkeysan jiray inaan nahay carab afkoodii ka yara fogaatay wuxuu dhihi jiray ma jiro ruux af uusan garanayn ama uusan u dhalanin 3 bilood ugu baran kara sida dadku u dhashay afku waa idinku jiraaye waa uu dansan yahay wuxuu doonayaa ruux nalku u shida ayuu dhihi jiray run ayuu hadalka macalinka noola ekaan jiray markaana aragno arday badan oo Afrika iyo Aasiya laga keenay barashada afkuna sanado badan ay ku qaadato caadil intaas kuma uusan ekaan jirin wuu aaminsanaa inaan nahay Iraaqiyiin sidiisa oo kala ah caadil al-Rasaafi wuxuu ku dhiganaa aragti dhahda Soomaalidu kumanaan sano ka hor ayay ka hayaameen dhulka Mesopotamia ee u dhexeeya labada webi waa Dijla iyo Furaade waxayna ka soo gudbeen waqooyiga dalka Masar gaar ahaan deegaanka Sinai ilaa ay gaareen geeska Afrika oo ay maanta ku nool yihiin inkastoo ay noola muuqatay in aanan dhiig ahaan carab ahayn haddana si guud carabnimada kama aanan didsanayn waxaan ogeyn inaysan jirin bulsho naga xigta ama aan uga dhownahay carabta aan wadaagno dhul dhaqan dhiig sooyaal dareen wadareed iyo diin maalmihii koowaad waxaana la baray erayo noo sahlay la xiriirka macallimiinta iyo bulshada sida askari taliye tababar xero mahadsanid cunto biyo lab dhidig soo dhawow habeen subax wanaagsan xagee iyo kuwa kale sanad kadibna waxaan sida dadku u dhashay uga hadlaynay lahjada reer Baqdaad oo ah lahjad fudud
degan si cadna loogu hadlo. Afkii aan baranay wuxuu noo sahlay dhexgalka bulshada. Waxaa noo imaan jiray dad xog iyo xuuraansidoon ah. Intooda badan waxay naga wareysan jireen xaaladda dalkii aan ka imaanay. Nidaamka xukumay dalka oo midka ka taliya dalkooda gacan saar la lahaa ayay aad u ammaani jireen. Annaguna waan u jiibin jirnay. Maalin walba waxaan arki jirnay dhalinyaro iyo xitaa waayeel doonaya inay dhulkeena qabtaan. Waxay aaminsanaayeen in ruuxii tagaa dhulka Soomaalida uu dahab iyo diamond uu dhulka ka haloloobinayo. Qaar ayaana weydiin jiray qof qoyskooda ka mid ah oo sidii uu Soomaali u aaday aan war iyo wacaal midna laga helin. Inkastoo ay Soomaaliya ka weyn tahay bad ahaan dalka Ciraaq, iyaguna naga dad badan yihiin, haddana Ciraaqiyiintu waxay aaminsanaayeen in Soomaalidu iswada taqaano, hal meelna ku wada nooshahay. Bulshada dunida ku nool uma badna sida ay Soomaalidu tahay. Baro ama bowse wax walba wax ka ogow. Anigu markii aan Ciraaq tagay waxaan aqaanay in ilbaxnimadii ugu horeysay dunida ay ka bilaabatay dalka. Sidoo kale waxaan ogaa kala duwanaanshaha dadka Ciraaqiyiinta ah. Saddexda magaalo ee ugu weyn, labada webi ee mara, iyo weliba taariikhdii guunka ahayd ee ilbaxnimooyinkii Ashuriyiinta iyo Baabiliyiinta. Si gaar ah waxaan u xiisan jiray taariikhda Hammurabi oo ahaa boqorkii lixaad ee reer Baabil iyo imbrayadoorkii koowaad ee boqortooyadii Baabiliyiinta. Xogtan iyo kuwa kale oo la mid ah waxaan ka dhaxlay awowgay Bulxan oo sooyaalka Hammurabi aad ula dhacsanaa. Tan iyo yaraantiisiina raadin jiray xogta madaxdii dhistay, awood ciidan iyo hogaamin lagu nastay. Waxa uu jeclaa madaxda ku tilmaaman geesinimada iyo meelmarinta sharciga. Madaxda leh qorshe wanaagsan oo ay bulshadoodu ku bulaasho. Wax xog ah kama aanan haynin. Dadkii ay Ciraaqiyiintu na weydiinayeen waxaan soo ogeyn in madax bannaanidii Soomaaliya kadib ay Ciraaqiyiin isugu jiray macallimiin, xirfadlayaal iyo saraakiil ciidan ay dalka soo galeen. Dhalinyarada qaar ayaa isbeen fariimi jiray ama been isugu sheegi jiray oo iska dhigi jiray inay garanayaan ruuxa la weydiiyey. Waxay dhihi jireen, haa, hebel soo ninka cad ee dheer maaha, ama soo midka gaaban ee timaha jilicsan maaha. Kolba tilmaan ay ku dayi jireen. Kolkol ay ku dhihi jireen, hebel soo ninka buuran oo sanka dheer maaha. Haddii la dhaho maya, ninkaas hilibkuma aanan ogeyn, isaga oo dhuuban ayuu naga tegey. Waxay dhihi jireen, ninkaas hadda garan maysaan, waa wacyiilay, waa naqaanaa. Wuxuu leeyahay dhul weyn oo dahabka laga qodo, hara ballaaran oo diamondka laga soo bixiyo, 10 libaax, 9 maroodi iyo 20 meeyo shabeel ah. Wuxuu dhistay guri macdan lagu xardhay. Markii Ciraaqiyiintu sheekada la falgalaan ama la socdaan, indhahoodana yaab la weynaadaan, ayay u raacin jireen 4 xaasna waa uu qabaa. Markaas ayuu hungurigu ka soo dhici jiray, una wada hanqal taagi jireen tegidda Soomaaliya. Ma jirin ruux u qaadan jiray marin habaabin ama u dareemi jiray inay dhalinyaradu ku ciyaarayaan. Waxay ragga Ciraaq xamaasaddu hadatayn jirtay markay dhalinyaradu dhahaan nin walba oo Soomaaliya amaba aan ahayn ee dhulka Soomaalida ku nool, diintiisa iyo dhaqankiisuna u ogol yihiin, wuxuu qabaa ama uu gursan karaa 4 xaas. Guurku agtooda aad ayuu uga adkaa. Inta badanna waxay isku gursan jireen ehel iyo qaraabo. Naadir ayuu ahaa ruux ka tilaaba xeyndaabka reerka. Mana jirin nin si fudud u yeelan karay 2 xaas iyo ka badan isaga oo aan maxkamad iyo marag marin. Inkastoo dadka Ciraaq ee barkisan ilbaxnimada guunka ah ee kor u dhaafaysa 10,000 ee sano ee noo hagarbaxayeen, haddana waxaan la qabsan weynay cuntada iyo qaab nololeedka. Jawiga saa'idka u kulul xagaaga wuxuu naga dhigay kuwa dulqaad yar oo eed sheegashadooda loo maaro waaye. Jiilaalka qabowga lafajabiska ah watana waanu babac dhigi kari weynay. Markii koowaadba waxaana la geeyey jaamacado iyo xarumo waxbarasho. Filanshawaa ayay igu noqotay subaxii koowaad ee aan fadhiistay kursi jaamacadeed oo aan ku baranayay xanaanada xoolaha. Maskaxdaydu waa ay keeni weyday xiriirka ka dhexeeya sirdoon iyo daryeel xoolo. 3 sano iyo 2 bilood oo aan arday ka ahayn jaamacad caasha ku haysay xaafadda taariikhiga ah ee Al-Acdamiya. Waxaa naloo daabulay gobolka Naynawa oo ay caasimadda u tahay magaalada Al-Mawsil. Gobolkan loo yaqaano Ciraaqda yar waxaa ku wada nool qowmiyado kala dhaqan iyo diin iyo afduwan. Maadaama aan ka imaanay dad isku mid ah oo walaalo ah degan yihiin, waan la yaabnay in hal gobol dadkiisu ay sidaas u kala jaad iyo jinsi duwan yihiin. Waxaa ka mid ah dadka ku nool gobolka Naynawa Carab, Turkumaan, Kurdi iyo shucuub kale oo bilay quruxda iyo kala duwanaanshaha dhaqanka iyo dhiigga gobolka. Kala duwanaanta iyo qowmiyadaha badan ee ku dhaqan gobolka waxay keentay inuu caan ku noqdo kala irdhow iyo halgan aan istaagin oo lagula jiro taliska Baqdaad oo dadka in badan af iyo adinba ku maqooniyay. Sanadkii aan tagnay waxaa gobolka ka socday dagaal u dhaxeeyay dawladda iyo cutubyo ciidamo ah oo ka soo horjeeday siyaasadda
oo xisbul xaakumku dalka ku maamulayay xisbigu sidii mid Kenya oo kale waa uu gacan adkaa aragtiyihiisuna way ka fogaayeen diinta islaamka waxaa halhays u ahaa qadarka madaxda naga dhigay ayaa noo baneeyay u talinta amarku taagleynta xoog ula hadalka iyo gacan bir ah ku qabashada bulshada meelo badan oo gobol ka mid ah waxaa ka jiray guux iyo dhaqdhaqaaq hoose oo ay wadeen kurdi ka cabanayay digariix ay ku hayaan carab cudud dowladeed og waxay dadka degan gobolka intaan carabta ka ahayn aaminsanayeen in magaalooyin iyo dhul ay leeyihiin in laga qaxinayo dad kalena lagu beerayo dhaqdhaqaaqaas waan u jirnixi jirnay maadaama Soomaali badan oo Mataan Yaasiin uu ka mid yahay dhulkoodii xoog loogu soo qaxiyay dad qalaadna lagu beeray ma dhici jirin in dadka aan u dhalan waddanka la geeyo goobo fogfog gaar ahaan kuwa dhibaatadu ka jirto anagase dawladdu waxaynu arkaysay walaal lagu kalsoon yahay ma jirin sabab iyo cid aan u basaasno sidaas darteed ayaana la geeyay gobol laga abaabuli jiray mucaaradka dawladda waxaana loo sheegay inaan ku jirno shaqo abaalmarin ama ciqaab lagu mudanayo shaqadu waa in xog laga keeno qowmiyadaha kala duwan ee iswada dhagraya halka gobolna ku wada nool si aysan dadku nooga shakiyin waxaan yeelanay ama naloo sameeyay xirfado gabaad ah iyo magacyo humaag ah si wanaagsan ayaan u qabanay shaqooyinkii naloo diray una jilnay magacyadii mihnadii iyo muuqii aan qaadanay firfircoonidii aan muujinay cadow badan ayay noo abuurtay ciraaqiyiintii dalku u dhashay ee aan kaga badinay ururinta xogta iyo weliba gorfeynteeda ayaa dhex qaaday magaaladii giddigeedna gaarsiiyey inaan nahay sirdoon halis ah oo ku xiran xafiisyo magacooda laga argagaxo wajiga ayaa naloo bedelay colaadna waa nala tusay raggii ayaana riixay dumarkii ayaana huruufay haraantina kala hortegay kuwii habeenkii u huruulan jiray weji duuban iyo faragilgil ayaa soo dhoweyntii beddeshay dareenay in waayaheenii naynawaa uu gabaabs yahay sidoo kalena garwaaqsanay in si ka baxsan tubta ciidannimo naloo adeegsaday siday doontaba ha ahaatee waayo aragnimo ayaan ka soo helnay deegaanadii aan tagnay ilaahay ayaana soo kala furtay annaga iyo reer naynawaa baqdaad iyo baradii aan ka baxnay ayaan 16 bilood kadib ku soo laabanay dhowr maalmood ayaan fursad u helnay in aan magaalada dhex mushaaxno goobaha dalxiiskana u daawasho tagno farxaddii iyo nasashadii ma sii waarine waxaa dhantaalay dhambaal shamhad iga soo gaaray waxay ahayd casar falaaraha qoraxdu canananaayeen oogada dhulka waxaa lagu jiray xagaa isaga oo kale aan soo marin bariga dhexe heerkulku wuxuu isku shareeray 60 darajo dawladdu waxay ka dhigtay in dibadda loo baxo inta u dhaxaysa barqinka ilaa iyo casirka aniga iyo Mataan Yaasiin waxaan fadhinay maqaaxida alnahda oo aan kaga dhuuman jirnay umraha agoosto kafay qiimo jabanna la siin jiray waxaa noo soo galay gaarana xasan oo safaaradda u doontay fariin uu ka sugayay qoyskiisa safaaradda Soomaalida ayaana loogu soo diri jiray dhambaalada dhulkii hooyo ka imaan jiray si wadar ah ayaan wada akhrisan jirnay fariimahana ka warin jirnay udgoonkii dhulka iyo cadarkii aan la garawaayi jirin ee hooyooyinka Soomaaliyeed farxadda ayaan la wadaagi jirnay ruuxii loo bishaareeyo midka dhiilo loo soo sheegana walbahaarka ayaan la qaybsan jirnay gaarane galabkaas wuxuu soo gaarsiiyey fariin ay shamhad ii soo dirtay aniga oo dhoof ku maqan ayaa dhiilo dhulkii hooyo la iiga keenay durbadiiba muuqaalkeygii ayaa isbedelay Mataan oo dad iigu dhawaa dhinaceygana fadhiyay ayaa su'aalo igu asqeeyay isaga oo raba in waxa dhacay aan u sheego arrintu way ka adkeyd in aan durbo hadal bilaabo ama aan ka sheekeeyo dareenkeyga sida durugsan u qasan dhambaalkaas kadib Ciraaq iyo ciidannimada waan nacay waxaan sugayay inaan dib ugu laabto dhulkeygii hooyo aminku waxa uu jiitamaba waxaa la gaaray qalinjabinteynii oo ku soo beegantay dalka oo ku jira dagaal daba dheeraaday awoodiina la wiiqay 15 November waxaa tababarka ka qalinjabiyey arday kor u dhaafaysay dhowr boqol oo isugu jirtay bileys military sirdoon commandos iyo noocyada kala duwan ee ciidanka xafladda waxaa ka soo qayb galay safaaradaha iyo diblomaasiyiinta dalalka ardaydoodu ay qalin jabinayeen sidoo kale waxaa goobjoog ahaa Aamir al-Basaas oo ahaa taliyaha guud ee sirdoonka dalka Ciraaq basaas oo ka soo dhuxul qaatay Nuubiyaanka wuxuu ahaa nin aan jeefaaf lahayn nolosha aadanahana aysan macnaba ugu fadhin wuxuu ahaa nin isla weyn aaminsan inuu leeyahay cod laga argagaxo xog la xiiseeyo iyo xigmad loo dhig raariciyo wuxuu ahaa nin ay naftiisu mandoorisay dadnimadiisana la dhacsan al-Basaas oo lagu sheego wadnaha taliska iyo ninka ugu dhow madaxweynaha marka uu dhaqaaqo waxaa dabayaaci jiray gawaari gaashaaman iyo boqolaal wardiye ciidamadii qalin jabinayay oo ka koobnaa 26 dawladood oo ay Ciraaq xiriir dhow lahaayeen hortooda ayaa ammaan naloo miisay bilad iyo bogaadina naloogu daray
in yar ayaa ku faraxday in saaxiibadood la maamusay. Ammaanta koowaad waxaan ku mudannay sida aan isku waafajinay qorsheynta iyo wada shaqaynta ciidamada kala duwan si loo ilaaliyo badqabka xarumaha iyo fadhiisimaha xasaasiga ah ee ciidamada qalabka sida. Sidoo kale kormeeridda iyo qiimaynta heerka nabadgelyo saldhigyada ciidamada, gaar ahaan kuwa kulaala xuduudaha cadowga, ayaan ka keenay buundooyin yaab leh. waxaa aniga si gaar ah laygu ammaanay dadaalkii aan muujiyey iyo sidii aan soo diyaariyey labadii qodob ee sida gaarka ah laygu tababaray: tabaha looga hortago sirdoonka shisheeye iyo adeegsiga ilaha sirdoon ee aan haysano si aan u xakamayno dhaqdhaqaaqa sirdoonka cadowga. Mataan isaga waxaa abaalmarin gaar ah lagu siiyey ogaanshaha dhaqan wanaagga, daacadnimada iyo sida ay saraakiishu ugu jajaban yihiin nidaamka dalka ka taliya. Gaaranana wuxuu abaalmarin ku helay sidii uu uga soo dhalaalay la dagaalanka dembiyada abaabulan iyo daroogada. Waraysiga maxaabiista ciidanka ah ee dagaalada lagu soo qabto, anigu ka mid ma ahayn askartii la daroogaysneed reynreynta abaalmarinta ciidanka. Aniga oo ay weli igu taagan tahay fallaartii fariintii hore ayay fariin kale iga soo gaartay Shamhaad. waan sugi la'ahaa inaan safro si aan u hubsado dhabnimada dhambaalada. waxaa ila socday Xiirey oo badanaa farxadda weheligu ahaa. marka uu Xiirey ila socdo waxay soo gaari jiray wararka wanaagsan. saaxiibaday oo igu fiirsan waayay xaaladii aan ku sugnaa ayaa dibadda ii bixiyey. waqti la wada mahdiyey ayaan ku qaadanay jasiirad ku dhex taallay webiga Dijler. saaxiibaday oo marayay da'da uu aadanuhu u nugul yahay jacaylka ayaa talo iyo tartarsiin isugu kay daray. waxay igu waaniyeen in aanan sii daynin jacaylka inanta jananka. aniguna taladaas way ila qumanayd. qalinjabintii 3 bilood kadib ayaan tagnay safaaradda Soomaalida ee magaalada Baghdad. Danjire Sahal ayaa si gobonimo leh noo soo dhaweeyey. subaxii xigayna na soo saaray diyaarad nuuceedu ahaa Airbus A300. sidii mandadkii ayay kasoo duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baghdad oo dhowr sano ka hor la furay. sida lagu sharaxay derbiyada iyo boorar ku yaalay afaafka iyo gudaha gigadaba, wuxuu ahaa garoonka diyaaradaha ee ugu weyn uguna casrisan bariga dhexe. sanad walba waxaa ka dhoofi jiray ama ka soo degi jiray dad lagu qiyaasay 9 milyan oo qof. tiro aad u badan ayay 9 milyan ahayd waagaa durugsan, mana jirin garoon heli karay tiro u dhow dadka uu garoonka Baghdad u adeego. sidii gorgor tamashlaynaya ayay diyaaraddii baalasha fidisay. guux yar ayay yeelatay. kadib sidii gaari dhul aan sinayn marayo saaldaysay. tawxiidka ayaan cuskanay ee bana weydiisanay nabad iyo naxariis inaan ku gaarno dhulkii hooyo. daqiiqada kadib ayay weecatay. cadceeddana babaca u dhigtay. duuliyihii ayaa dadka u shiday badhanka qeexaya suuniska furidda. danihiina qabsada, digtoonidana ka baxa ayaa la yidhi. dhowr qofood ayaa istaagay oo musqusha diyaaradda horteeda isku garbiyey. durbo af Soomaali ayaa soo yeeray. alla maxaan u xiise qabay. adeegii diyaaradda ayaa la bilaabay. cuntooyin kala duwan oo dalka iyo dibaddaba leh ayaa la qaybiyey. shaah, sanjabiil iyo hayl loogu roonaaday ayaa la ii dhiibay. fiiqsigii horeba fax ayaa noqday. raaligelinta rakaabka iyo adeegaba waxaa u darbanaa gabdho xul ah. dhabankooda dheeh maariin ah ayaa ka muuqday. ma aysan siluugsanayn muuqaalkooda, oogadoodana kuma aysan doorinin kiimiko. wiilal isla itaal iyo ayna eg ayaa iyaguna shaqada ku jiray. diyaaradda waxaa saarnaa dad aan ku qiyaasay 100 iyo dhowr ruux. caddaan iyo madowba way lahaayeen. 30 ruux ayaa nagaga haray magaalada Ammaan ee caasimadda u ah dalka Urdun oo aan dhexsin u sii maraynay. Soomaalidii ayaan iska dhex galnay. fadhi ku dirir iyo dood kulul oo beelaha Soomaalida ku saabsan ayaan ku biirnay. anigu waan iska aamusay, ilaan dhaqanka Soomaalida waan aqaanaaye. durbadiiba labo ayaa foodis daray. kadib markii ay ku heshiin waayeen labadooda awoowe, midka geel, gamaan, guunyo iyo gabdho badnaa. cod dadkii diyaarad saarnaa oo dhan ay dhibsadeen ayay aflagaado luglagaado isku bedeli kartay isweydaarsadeen. way adkaatay inay isfahmaan ama is oggolaadaan. ugu dambayn iyaga oo aan heshiinin ayaa la kala aamusiiyey. Xiirey ayaa diyaaradda kula kulmay in abtigii Saalax oo laga soo bedelay safaaradda Soomaalida ee magaalada Ammaan. Saalax muddo 3 sano ah ayuu xoghayaha guud ka ahaa safaaradda. haddase waxaa safiir buuxa looga dhigay dalka Hindiya. aad ayuu isagana Saalax shaqadiisa cusub ugu xiisay. waa uu sugi la'aa inta uu kasoo jeedsanayo kursiga koowaad ee safaaradda magaalada New Delhi. nin bisil afaf dhowr ah ku hadla, diblomaasiyaddana fahansan ayuu ahaa. in yar oo aan wada sheekaysanay, ammaan iyo abaal uu u hayo madaxda dalka hogaamisa ayuu ku mashquulsanaa. sidoo kale wuxuu muujiyey ku xeeldheeri suugaaneed. dhexda ayay sheekadu noo maraysay markii aan maqalnay buuq iyo sawaxan soo xoogaysanaya oo ka soo baxaya dhanka dambe ee diyaaradda. mataan oo hurda ayaan dhanka daaqadda ka xigay ee waan ka war dooni lahaa bulaanka baxaya. waad garan kartaa culayska haya Soomaali wardoon ah.
xumad ayaa layga shiday waa aan jirracooday xog la'aan ayaa i ciishay kuma qancin warkii uu ruuxba ruuxa ka dambeeyo u soo tebinayay qof aan weydiiyey waxa dhacay ayaa iigu jawaabay ma garanayo walaal waxaase la leeyahay gabar ayaa xanuunsan alla warku kululaa dadka kale dhibaataba kuma haayo ma doonayaan inay ogaadaan saamaba quseeyo annaga oo ninba sidii la qumanayd uu dhacdadii u fasirtay ayuu baylood kulmiye mikrofoonka diyaaradda ka sheegay in luul oo ka mid ah rakaabka ay dhashay wiil iyo gabar mataano ah sacab foori iyo mashxarad ayaa isqabatay maasha allah ayuu oday xagga hore ka yidhi mataan oo toosay ayaan ka sheekaysanay farxadda nin sugaya xaaskiisa kadibna qaabilay 3 ruux farxad iyo ifafaalo wanaagsan ayaan u qaadanay mataanihii luul waxaan isku sheegnay in nolol cusub oo naruuro leh sida aan filaynana ka wacan ay noo bilaaban doonto markaan cagaha dhulka dhigno 4 saac iyo 40 daqiiqo oo aan hawada sare sabaynaynay waxaan soo gaarnay magaalo aan rabnay inaan nolol cusub ka bilowno baddii ayaa sheeda ka soo muuqatay dalku wuxuu ku jiray xawaaro dhismo dabaqadda dhexe ayaa ku dhaqaaqday dhisme iyo ganacsi dabaqadda sarena tamashlayn iyo dalxiis dariiqyada waxaa buuxiyey danyar badankoodu miyiga ka soo hayaamay waa aan ku faraxnay inay magaaladu dhisan tahay waxaan siis weydiinay in dhismaha dadka iyo dalku ay isla socdaan mataan oo ku dhashay miyi gabayga iyo geelana caan ku ah ayaa ka walaacay soomaalida soo bannaysay miyigii noloshooda saldhig u ahaa wuxuu ku calaacaday haddii ay xaaladdu sidaan ku sii socoto dhaqankaynu waa uu dabargo'ayaa waxaa meesha ka baxaya kaydkii sooyaal iyo hidde ee sannadaha badan jiray soomaalidu waa ummad noloshooda ku tiirsan tahay labada rukun ee dhaqashada iyo tabcashada haddii ay magaalo soo wada galaanna waxaan bilaabaynaa bog cusub oo aanan hubin inaan fahmi karno layaab ayay igu ahayd in mataan oo ku noolaa magaalooyin waaweyn tababaro kala duwanna ku soo qaatay dalal ka fog miyigii uu ku dhashay weli maankiisa uu jiro bankii ama dhulkii buurta ahaa ee uu xoolaha ku raaci jiray iyo ceelashii uu geela ka waraabin jiray adiga oo magaalo joogo in maankaagu uu miyi ku maqnaado saaxiibkay keli kuma aha inta badan soomaalidu dhaqankii miyiga ayay magaalo la galeen taas waxay dhexal siisay inaysan noqonin reer miyi muunad leh diyaaraddii ayaa cagaha la baxday oo dul heehaabtay sidii shimbir xaragabiib ah howd barkisan webi iyo dhulkayn ah oo ay ugaar iyo ariba daaqayaan inta ishu qabato waxaa ishayay beero midib cagaar ah ku daharay oogada dhulka sida gorgor gaamuray ayay lugaha dhulka tartiib ula heshay kusoo dhowaada dalkiina hooyo ayuu nagu macsalaamiyey danjire saalax oo noo sheegay inuusan raacin kuraasta gaarka ah iyo qaybta tamashlaynta ee diyaaradaha dadkayga inaan dhib iyo dheef la qaybsado ayaan jeclahay ayuu nagu yidhi isaga oo malaha naga dareemay in aan la yaabannahay danjiraha dadka dhex fadhiya jawiga guud iyo cimilo gooreed mar hore naloo sheegay ayaana si xiise geliyey gegada diyaaradaha waxaa nagu sugayay saraakiil iyo ehel u hamuunyo qabo aragtideena anaga ruuxeena boholyow ayaan bisteyn la ahayn markiiba saxansaxada ka soo dhabanaysa badda ku tiirsan buuraha bacaadka ah ayaa sanka iyo sanbabkaba siisay hawo ugbaad ah saaxiibaday waxaa xabadka geliyey waalidkood dhunkasho iyo dhugasho ayaa lagu asqeeyey gaarane hooyadii ayaa ku barooratay sidii isaga oo goob geeri ka soo laabtay mataanna aabbihii iyo walaalihii ayay isku burureen aniguse soo dhowayntaas ma aan helin ma jirin qof aan sugaaye awowgay god ayaan ku hubsaday hooyaday waa ay ka dheer tahay dhulka aan ku dhaqnaa aabbahayna waa nin ka saayiday duni iyo dadla dhaqan waxaan damcay inay luul iyo mantaanaheedu ahaadaan shamhaad aniguna sayga garoonku sugaya waxay ahayd riyo ruuxii riyo run u maleeyana waa uu habaabaa saalax ayaa garabka iga taabtay geylamow gurigayga ayaad ku martiqaadantahee ogow aniga oo aan u jawaabin ayuu raaciyey waa inta aanan hindiya aadin bilowga abriil ee sidaa ula soco wuxuu i ballamiyey jimcaha ugu dambeeya bisha intaanan weydiinin gurigiisa halkuu ku yaallo ayuu galay gaari qurux badan oo u taagnaa gudaha madaarka ama garoonka annaguna waxaan raacnay saraakiishii na sugaysay oo markiiba toos noo geeyey xaruntii shaqada annaga iyo saalax 2 wadiiqo oo dalka loogu adeegayay ayaan kala qaadnay dibna iskuma aanan arkin waxaan rajaynayaa inuu nabad iyo caafimaad ku naaloonayo rumeeyeyna riyooyinkii uu hirgelintooda ku hamin jiray gaar ahaan aruurinta sugaanta awowgii cabdisamed guudir oo culays muuqda ku hayday soo dhowayn diiran ayaan la kulannay cabdikaafi oo ahaa taliye isku howla farxadda askarta uu xukumo ayaa guul inoo rajeeyey daacadnimo iyo inaan si hufan u shaqaynana nagula dardaarmay taliye cabdikaafi oo ay saraakiisha ka hoosayso ee jeclaayeen wuxuu ku celceliyey
aqoontii aan soo barinay aan ku ilaalino gobonnimada iyo sidoo kale nabadgelyada iyo madax bannaanida qaranka. Wuxuu ahaa mas'uul howlkar ah, xilkas ah, xaqa eebbe iyo midka aadanahana yaqaana. Dardaaranka Cabdikaafi dhegaha iima dhaafsanayn. Waxaan sugi lahaa inta aan ka baxayo xeerada ciidanka si aan u dhex galo magaalada, u maro jidadkii aan ku lugayn jiray, aniga oo na awilaya meesha aan maanta joogo, si aan soo eego goobihii aan fadhiisan jiray, aniga oo baahi iyo cabsi ay isku kaybahaysteen. Magaaladii ayaan galay, dadku qurux badanaa, dalkuna udgoonaa. Inkastoo uu cirku qaawanaa, haddana barwaaqadii sannadihii tegay ayaa weli kasii muuqatay oogada dhulka. Beled iyo baadiyaba waxay Soomaalidu marayeen xilli tigaad ah, abaar iyo aafana eebba ka koriyey. Macno weyn ay ii samaynaysay in ruux walba oo ay ishaydu qabato uu Soomaali ahaa. Dadka iga soo horbaxaya kuma jiro ruux iga muuqduwan naloo kala turjumayo ama aanan garanayn meesha, maqaamka, maamuuska iyo milgaha uu iga mudan yahay. Wax walba waan u xiise qabay, dad, dunyo iyo dal. Ruuxii iga soo horbaxaaba aniga oo qoslaya ayaan salaamayay. Ariga dariiqyada maraya waan u foorinayay. Lo'da foofka dheer ka soo noqotana waan u heesayay. Ubadkana nacnac farqaha iigu bikilnaa ayaan u qaybinayay. Waxay ahayd markii koowaad ee aan u oggolaado in uu tamashleeyo dhallaanka aan korin ee igu dhex nool, kana tilaabo seeraha bulshada iyo suuradda ciidanka. Farxaddayda lama malay karin. Waxay ahayd markii koowaad ee aan in muddo ah goos dambeedka ka qoslo. Waxa aan rabana sameeyo cabsi la'aan. Ka sokow in aan soo qalin jebiyey, dalka hooyana dib ugu soo laabtay. Farxaddayda waxaa gundhigu ahaa la midowga jacaylkayga. Lacaweynta inanta jarnaalka ma ahayn ciyaar. Shamhaad waxay ahayd raasmaal aan isku maaweeliyo iyo wehel iga soo saaray maalmihii adkaa ee aan ku soo qaatay xirooyinkii leyli bixinta. Waxaan ku taagnaa ballan uu kayd sane iga qaaday. Subaxii aan aadayay Ciraaq waxaan ku kala tagnay in Shamhaad ay ooridayda noqonayso markaan ka soo laabto tababarka, lugahana isku duwado. Inkastoo ay walaac igu abuureen dhambaaladii soo gaaray sannadihii aan maqnaa, haddana kama cabsi qabin isweydaarasho. Waxaan ka fikirayay goorta ugu horraysa iyo munaasabadda ugu habboon ee aan ku hanan karo ina kaydsane. Aniga ayaan fahminay sida ay wax u socdeen iyo sidii aan ku waday aad ayay u kala fogaayeen. Xogta Shamhaad ee gabaabsiga ugu ah waxay leeyahayd kansha la'aan iyo keenaan lagu hayo. Sidoo kale kuma waana qaadanin fariintii uu Siraaji soo gaarsiiyey maalintii labaad ee aan dalka imid. Si banyaal ah ayuu igu sheegay in aan nolol kala samaysto oo aan raadsado gayaankay, inanta janankana iska ilaawo. Ka soo qaad gabal dhacay iyo maalinkii ka horreeyey subaxii aad isbarateen ayuu ugu yidhi, dhig jalaq uma siinine. Jacaylkaygii ayaan sii watay. Gacal kala maqnaa iyo geelba waa isku ololaaye. Waxaan go'aansaday inaan afka isaga shubo gurigii aan Shamhaad ku ogaa. Cidna ma weydiinin waxa ay mudatay gadaashay. Miyaa la guursaday oo nin ayay oori u tahay, mise way adkaysay axdigii? Aminka ayaa dheeraan kara mooyee waad waayaysaa meesha ma soo dhiganin. Gurigii ayaan tegey. Jaan iyo jabaq midna ma leh. Waxaad moodaysaa jabo ama jabad oo waa hore laga jaqaafiyey. Garaac ayaan gacanta u qaaday. Gow gow cid iga furto ayaan waayay. Cabbaar markii aan waayay ayaan iska soo tegey, aniga oo dareen i galay. Maantay shalay u ekaa. Waxaad mooddaa inaan dib ugu laabanayo jid aan horay u soo maray. Maskax su'aalo badane, maana aragti cunin oge. Waxaa igu soo dhacayay boqolaal sawir iyo aaye. Kolba xaajada dhan ayaan u dhigaa, dhinac ayaan u ridaa, dhardhaarada ayaan isweydaariyaa. Isku dayaa inaan dhidibada u aaso fikir ii bidhaamiya sababta uu gurigu cidla ciirsila u yahay. Ma helin jawaabi deeqda. Aniga oo dhirif ama xanaaq cirkaas maraya ayaan dhafoorada qabsaday. Kadib ka fikiray sida uu xaalku dhammaan doono. Ilaan akhristow inaad luqunta hogaamiso iyo hogasho cil baa leh. Waan iska soo tegey. Waxaan damcay inaan caay iyo caraatan u miiso jananka. Haddana waxaa qabigu soo tiri ninaan ciilay ayaa i caayay. Xeradii ayaan qabtay. Sariir dusheed ayaan gorodda laalaadshay. Waa aan liqi waayay inaan Shamhaad arkin, aniga oo 53 saac magaalada jooga. Xerooyinkii Naynawa iyo xaaladdii Ciraaq waxaan kaga soo gudbay jacayl adkaysi i baray. Marka aan kaligay riyaha daaqo waxaa ii muuqan jirtay nolol raasmaad leh. Maxaa ka maqan sarkaal ka mid ah tiro kooban oo lagu aaminay sirdoonka dalka, la xidhiidhaya janan la fuliyo rabitaankiisa inta uusan hadlin. Ninay u dhexayso inan qofkii dhaayaha saaro uu ku sigto inuu maansayaha noqdo. Qiimaha iyo quruxda Shamhaad gabay iyo aamus mooyee tiraab laguma cabiri karin. Kadib toddobaad aanan dhaayaha indhaha saarin, inantii jananka gartay in xaalku uusan saleele ahayn. Socdaal iyo baadigoob ayaan galay.
dhowr toddobaad sal dhul ma dhigin inkastoo guri walba oo aan garanahay aan garaacay haddana raad iima bixin gurigii ugu dambeeyey ee aan isku macsalaameynay waxaa loo beddelay goob gaadiidka dadweynaha laga raaco usteejo kaari wareersan darawal qaadiriyeysan kirishbooy indha guduudan iyo bulsho safara mooye qof kale kuma arkaysid dun kasta oo shamhaad igu xidhaysay waa la gooyey xusuus mooye xayi waanu arki waayey nin jacayl ku dhacay baa jahwareer lahee markii aan welwel cir iyo dhul la qaban waayey ayaan xasan miciin biday sidiisii ayuu u feejignaa uga fogaa hadalhaynta madaxda faragurow oo aan sannado badan kala maqnayn wax aan sheego kama faa'iidin jiq iyo qodxo isdhaafay ayay xaajadii ugu noqotay alla guulalowga caashaqu kululaha raggii aan isla soconnay way ka nasteen diyahaalkii safarka aniguna tub guhaad badan ayaan ku yidhi aniga oo aan nasanin jacaylkaygiina helin ayaa laygu tuuray furin holciisa waxaan qayb ka noqonnay aniga iyo saaxiibaday dagaal ugula jiray jabhad ku kacday taliska la dagaalanka jabhadda waan ku qasbanaaye kuma qanacsanayn xiislaantii dagaalka waxaa gundhig u ahayd in labada dhinac ay ahaayeen walaalo iyo wiilal wada dhashay kugu dhimay oo kaa dhimay inkastoo ay jabhaddu ay doonaysay manjaxaabinta taliska aan difaaciisa u dhaartay haddana iilama aysan muuqan cadow mudan in la cirib tiro qodobka labaad wuxuu ahaa in ciidanka qalabka sida uu shacabka uga nacabsanaa jabhad aan lahayn yool ka fog argoosi iyo raadinta xukun aysan garanaynin jidka loo maro si guud jabhaduhu xanaaq mooye xigmad iyo xal midna ma aysan haynin waxaan isdhihi jiray alla yaa mideeya labada ciidan waa dowladda iyo jabhaddee kadibna ka howlgeliyo helidda ina kaydsane dareenka caashaqa ayaa igala kululaa daryaanka rasaasta waa aan dhuubtay labadeeda dhafoorna waxay u ekaadeen saxan gudan oo cunto lagu ridan karo marka aan daalo waxaan isku samirsiin jiray in shamhaad iyo anigu aan hal hawo wada qaadanno hal qorax noo soo baxdo hal cir wada hoos joogno hal dayaxna wada daawanno dhowr magaalo ayaana loo qaybiyey aniga waxaa laygeeyey higlo oo ay dul fadhiday jabhaddii tisis ee gilgishay carshiga dalka awoodda jabhadda waxaa saldhig u ahaa baaxadda dhulka ay ka taliso badnida beelaha taageersanaa iyo baacdheerida dowladihii musdambeed ku ahaa inta badan ciidanka jabhaddu waxay ka mid ahaan jireen ciidamada qalabka sida korneel shanqaryare oo madax u ahaa ciidanka magaalada iyo gobolkaba go'doomiyey waxaa lagu xasuustaa inuu dhowr sano ka hor si geesinimo leh fallaagada uga difaacay magaalada istiraatiijiga ah ee jamalo adag oo qarka u saarnayd inay mucaaradka gacanta u gasho sida la sheego waxaa mucaaradnimadiisa saldhig u ahayd kabiyadiidka gacan bidixaynta beeshiisa korneelku wuxuu aaminsanaa in qoyskiisu mudan yahay cadka ugu weyn marka jago iyo jaah la qaybsanayo markii uu waayay sidii uu rabayna barqin cad ayuu baxay qorina ka doortay xil iyo xoolo wixii uu lahaa goosashada korneelka oo ahaa sargaal leh tababar sare tacliin togan dishibiliin taam ah iyo tayo hogaamin dharbaaxa kulul ayay ciidanka ku noqotay shanqaryare wuxuu ciidankii jabhadda geliyey dardar hor leh dhiig cusubna waa uu ku biiriyey durbo wuxuu qabiiladii taageersanaa ka soo ururiyey cutubyo ciidamo ah oo tababar looga furay meel aan magaalada ka fogeyn wuxuu isku keenay boqolaal dhalinyaro ah oo maskaxdooda la dhaqay diyaarna u ahaa u dhimashada beeshooda allaahu akbar ayaa halhays u ahaa mujaahidiinna waa loogu yeeri jiray mara guduudanna madaxa ayay ku xihan jireen waxaan isweydiiyey haddii shanqaryare iyo inta la midka ah ay ka biyadiideen awood qaybsiga dowladnimo kadibna ay ku biireen jabhad halgan hubaysan kala hor tagtay dowlad ee wax walba ku qabeen annaga oo boqolaal sano uur ku taallo la nool maxaa noo diiday in aan geylanno miyaan la joogin xilligii aan ka gudbi lahayn laqabsiga hoosu eegidda ma garbaa in nala duudsiyo xaqii aan lahayn madowbaa inaan qadsanaanno dhaqan iyo siyaasadba mana qabataa inaan dusha sare uun ka eegno soomaali wax qaybsanaysa ninna jaga dowladeed oo laga qaaday ayuu daldhan u dumiyey annaguna dadnimadayna maqan ayaan la aamusannahay higlo wax caqabad ah kalama kulmin marka laga reebo damiir igubayey waxaa igu soo noqnoqonayay dareen uur ku taalo leh kaas oo igu xanuunjinayay erayo ay ka mid yihiin geylamow waxaad u kala hiilinaysaa laba reer oo kursi isku haya soo dhoweyn ayaan ka helay qof walba oo shaqo ama sheeko aan wadaagnay taliya shucayb oo kaydsane ilma adeer ahaayeenna aad ayuu ii soo dhoweeyey soo dhoweyntiisa diiran waxay iiga dhignayd inuu og yahay xiriirka naga dhexeeyo aniga iyo shamhaad barashada shucayb waxay la ahayd fursad aan ku ogaan karo goobta la geeyey geeyadii aan guurkeeda u oomanaa alla muxuu caashaqu rag carruur ka dhigay higlo dhexdeeda ayaan ka raadinayay jawaabaha jacaylka guddoomiyaha magaalada oo hadda magaciisa aan liqsanahay ama iga maqan
wuxuu noo sameeyey martiqaad uu nagu baray xubnaha xafiiskiisa ka shaqeeya. Siyaad oo isagu shaqada igu soo dhaweeyey lafdhabar ayuu ahaa guulihii aan gaarnay. runtii albaabada magaalada ayuu ii furay. wax walba waa ay is saarnaayeen, shaqaduna waa ay fadhiday. guulalow la'aanse ma aanan ahayn. wadnahayga daaqad ayaa ka duleeshay. habeen iyo maalinna walaac ayaan deris la ahaa. saaxiibaday way igu wareereen, waa ay ka xumaayeen xaaladayda sii liidanaysa maalinba maalinta ka dambaysa. mase ay ku dhici karin inay igala hadlaan gabadha aan jeclahay. qof kasta oo yaqaano waa uu ila yaabay. isbeddel weyn ayaa igu dhacay. waan hagaasay, hanjabay, haarufna yeeshay. shaqadaydu waxay xiriir la lahayd tababarkii aan qaadanay sanadihii la soo dhaafay. sidaas darteed kalama kulmin wax dhibaato ah. xaaladda nafsiga ah ee aan marayayna saamayn kuma aysan yeelanin tayada shaqadayda, maadaama aan isgarabsanaynay saraakiil aan sannado badan soo wada noolayn, howlgallo badanna wada fulinay. wax walba wuxuu ahaa sidii loogu talagalay. shaqaduna waxay u socotay si turxaan la'aan ah. durbo ilihii sirdoonka ayaa daadiyey shabaqyadoodii, si dhowna ugu kurgalay dhaqdhaqaaqa cadowga. shaqadii ugu adkayd ee aan qabanno waxay ahayd dhab u ogaanshaha tirada ciidanka iyo awoodda guud ee jabhadaha, qiimaynta tayada kaadirkooda, si hoose ula socoshada ilahooda dhaqaale, dhug u yeelashada dhaqdhaqaaqa taageerayaashooda gudaha iyo ilawareedyadooda. dadaal dheer kadib, xogtii jabhadda gacanta ayay soo gashay. waxaan fashilinay silsilad isku xirnayd oo mucaaradka dad iyo debba ku biirin jirtay. dhowr bilood gudahood waxaa gabaabsiyey ilihii sirdoon iyo dhaqaale ee ay jabhaddu ku tiirsanayd. howlgalladiina way yaraadeen. dadaalkii aan muujinnay waxaan ka dhaxalnay sumcad iyo hadalhayn. magacyadaynii ayaa gaaray xarumihii iyo xafiisyadii kala duwanaa ee dowladda. golayaasha jabhadahana waa nagagala sheekaystay. ammaan keliya maahine, intii aan shaqada ku jirnay dhaleeceen iyo cagajugleynba wayna soo gaareen. namase cabsi gelin, sida aysan ammaanta u noqonin rasaas disha feejignaanta, daacadnimada iyo dulqaadka, naftana ku beerta isla weyni. ayaysan hanjabaadu nooga hor istaagin ku dorkidda fadhiisimaha cadowga iyo la dagaalanka ilahooda dahsoon. khibrad la'aani waa belee meesha ma soo dhiganin in dadaalkeennu uu duminayo boqortooyo ganacsi, uuna furfurayo xargaha hanti ka dhexaysa mucaarad iyo muxaafid. kuma aanan baraarugsanayn in yoolka dagaalka jabhadda uu yahay xooladoon in ka badan inta uu yahay xaqraadin. magaaladii qarka u saarnayd inay xoogaga fallaagadu la wareegaan muddo kooban ayaan kaga dhignay goob ka caagan khalkhal amni. madaxda dalkuna u soo tamashla tagaan.